golaha midowga musharaxiinta iyo golaha wadatashiga qaran ayaa isfaham horudhaca ka gaaray dhowr qodob oo kamid ah qodobadii dib u soo cusboonaysiiyay khilaafka doorashooyinka dalka sida ay Israac TV u sheegeen ila xogogaala. musharaxiinta mucaaradka iyo golaha oo kulamo ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa isku fahmay in gabi ahaanba meesha laga saaro lacagta diiwaangelinta ergada ee CID-da iyo in la yareeyo qiimaha ay musharaxiinta ku qaadanayaan warqadda dambi la'aanta. sidoo kale waxaa labada dhinac ay isla qaateen in mudanayaasha xilligan ka tirsan baarlamanka uu waqtigu ka dhamaaday ee labada gole aan looga baahnayn warqadda dambi la'aanta ee CID-da. xogtan aan ka helayno qodobada isfahamka ay ka gaareen musharaxiinta iyo golaha wadatashiga qaran ayaa intaasi waxa ay ku sii daraysaa in la isla qaatay qodobka ka hadlaya bulshada rayidka ee soo xulaya ergada dooranaysa golaha shacabka. sida ay Israac TV u sheegeen ila ku dhow labada dhinac, madaxweynayaasha Puntland, Galmudug iyo sidoo kale Koonfur Galbeed ayaa ka hor yimid in wax ka bedel lagu sameeyo qodobka ka hadlaya odayaasha dhaqanka ee soo xulaya ergada beesha kadibna dooranaya xildhibaanka. sidoo kale waxaa jira qodob aan weli isfaham laga gaarin iyada oo labada dhinac ay u ballameen kulamo kale si toos ah markaa ama si hoos loogu dhigo khilaafka cusub ee ka dhashay habraaca doorashada ee awoodda badan siinaya madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka. si kastaba ha noqoto waxaa lagu wadaa in isfaham laga gaaro dooda habraaca cusub ee doorashooyinka si rasmi ahna markaa loogu shaacin doono kulamada ugu soo horeeya ee golaha wadatashiga qaran oo toddobaadyo kadib la sheegay in mar kale uu qabsoomi doono. dhinaca kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo sidoo kale Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland ayaa shalay isaga tagay magaalada Muqdisho. Axmed Madoobe ayaa dib ugu noqday xarunta maamulkiisa ee Kismaayo halka Siciid Dani uu u anbabaxay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.